gabadha xoogaa aan xataa waa ku xanaaqay waxa ugu xanaaqay soo gabadhan ilmihii iga dhiibtay ma fahanti ilmihii bay gaalada iga siisay aniga jarmalkan ku ogaa jarmalkay kasoo laabatay Sweden soo mar inta soo mar 20 wadan bay hal mar iska soo martay kadibna waxay tiri ilmihii hadda la qaatay waa kasa iyadoo telefoon lageen wax lageen markaas waxa ku tiri daawada uurka qaado shaada uurka ya markaas waxay kugu tiri haddaan daawada uurka ba qaadanayo xagga qof martiyo kale aan ku ay xagga iska seexo aan intaas ka seexay dhaaf maya intaas ka seexan ma dhihin laakiin waxaan dhahay maadaama ilmo naga maqan yihiin hadda qof ilmo ka maqan yihiin sharci ahaan waxa waa ilmo kale haddaa dhashid isla markii automatic loo qaadanaya mogta sidaa darteed waxaan dhahay yani ilaaha aakhir uu noo haystaa anagoo ilmo naga haysto haddaa ilmo kala dhalno haddana la qaato oo gaaladii u dhalno soo waa laga fiican yahay soo waxaan dhahay aan sameyno markaas aan kala korino ilmaha ma fahad hadda okay miya iska tartay waxaan saaray muudan saaray shukran mar kiiskan lagu soo eedeeyey ee gabadha ku tiri ilmihii ayuu iga dacweeyey maxaa uga jawaabaysaa kow markaa la duubaya okay ilmaha aniga ma dacweynin laakiin ilmaha la qaatay waa run in ilmaha laga qaatay 3 wiil waa naga maqan oo la qaatay waa xasuusta hadda ka hor qolada Denmark Danishka dawladdu waxaa qabsatay oo cunsuri ah dhowr boqol oo qoys oo dad ah oo Soomaaliya oo sharciyada haysteen sharciyadooda laga qaatay kadib iska sii tahriibay Faransiiska Jarmalka Itaaliya waa lagu kala yaacay ma fahanti qof meeshuu aadi karo aaday dad sharci lahaa waa guriyeen laga xirtay sharciyada laga qaatay xal wadankiina ku laaban kartaan qaarkood Canada meel walba la aaday kulli Soomaaliya adiga lu kuma lahayn okay saasay tahay intaas kaliya kuma sii ekaanina ilmo badan way qaateen oo hal iyo laba ka ahayn sanadkaas kaliya ilmo badan qoys badan la qaatay alwada yaabay ma fahatay soo aniga lukuma lahayn mana dacweyn qof ilmihiis dacweyn karana mi soo saaka markaan isku arkay programkaaga waa yaabay shooga ila noqotay waxa la inoo ajifay soo lambar caadi leh kuma leeyahay mugtay soo okay maxay ku dhacay markaas wiigaas mis dagaashaday gabadha maya dagaal oo adiga waa iska taqaanaa diirin naagtiisa buuq marmar waxa soo iska imaada dagaal yar laakiin dagaal oo ani iyada naga dhaxeeyo weyn ma jirin dagaal ma jirin may markaas okay adiga gabadha habeenkaas xaga saacad ilmaha la qaadanayo habeenka waxa ka hadlaysa ilmaha la qaadanayo maalinta ilmaha la qaadanayo habeenkeeda xaga saacad maalinta ilmaha la qaadanayo isku meel ma joogin ba aniga adiga xaga saacad guudi xaga jift xabadii isku meel ma joogin sukurta aan ku saraxay sheekada isku meel ma joogin ani Odensa joogay magaalada Odensa ayada magaalada Odensa ka baxday ilmaha waxay la aaday Jarmalka ilmaha waxay tiri waa la baxsanaa Jarmalka aaday Jarmalka ila geey okay way ku soo wacday ku tiri walaalo ilmaha la qaadanaya way ku tiri ilmaha la qaadanin koor ilmaha naagta ilmaha way la safartay waxay imaanaya ilmaha balan baa loo imaanaya soo bixi ku tiri guriga maya ilmaha aniga 2 bilood horta telefoonna ma keenin telefoonka way bedelatay laakiin aniga Jarmalkan ku ogaa Jarmalkan geeyay anaa baska la raacay Flix bas oo Jarmalka dhiibay oo kaam ku soo hubsaday okay waya ilmaha goorme la idinka qaatay ana waxa maqlay ilmihii way soo wacday waxay dhahday ilmihii hadda la qaatay Copenhagen ay jooga oo Copenhagen ma imaatay Jarmalkan ku ogaay may waa soo laabtay Sweden waa soo maray Sweden way soo diideen soo waxa fiican aan dhahay ina cunugan kale inta la ku dhalo soo iyada ilmaha la qaadana iyo sharciyada wadanka ogaalada iyo taqaana ma ku fikirinba waxaa soo laabana waxa imaanaya Denmark soo cunugan meeshan ku dhalaya maadaama kuwan kale inta ku dhasheen maxay cunug ku dhalaysa qof la raadinayo oo iskuulka ilmihii la geenin oo 2 bilood iska maqan oo maxaa la isheedi kamuuni raadinooyin oo maxkamad dagaalka ku socdo problem badan ku socdo wadankii ku soo noqotay aniga ma sheegin telefoonkeeda wadansana mogta ani Jarmalkan ku ogaaba way soo wacday waxay dhahday ilmihii hadda la qaatay ilmihii la qaatay way su'aalaha araba asaas ugu wareerin su'aalaha marka raba inaad detailsiisa badan anaa ku weydiinayo oo sharax halkaas ku leeyahay laakiin waxaan rabaa si dadkeena daawanayo ay u fahmaan run iyo beesay wax u kala socdaan oo la soo akhriyo wajiyada waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ilmaha goormeed ka qaatay sanadkee ilmaha waxa la qaatay 2021
لو كل 20 مش 20 adi 20 around 20 ha 20 November نوفمبر على قاتل ha وياي امس جاري محكمة مرين maxkamada badan ay mareen adiga markay cusbaayeen oo la qaatay ilmaha maxkamadooyin badan aan noo soo tuuray laakiin hadda maxkamada ay soo tuuraan way yar tahay laakiin kow markii la qaadanayo waxaan ku weydiin karaa imse maxkamada qiyaastii ay mareen adiga markay cusbaayeen qaadashadooda waxaa marnay ilaa 3 maxkamadood camal adiga imse maxkamada tagtay inta ilmaha laga haystay imse maxkamada waa tagay maxkamadooyin badan aan tagay 3 jeer 4 jeer camal aan tagay maxkamadooyin ilaa hadda waa tagaa haddaan tagin xataa waa la xiriiraa oo lawyer baa adiga iyo gabadha imse jeer isku arkeen maxkamadda waxaa isku aragnay adiga 2 mar 3 mar camal okay waaya ciyaalku 2020 November la qaatay ilaa hadda imse jeer booqatay adiga waxaan booqday 2 jeer 3 jeer camal ma u tagtay ilmahaaga maya booqashada xataa fiiri marmar xataa booqashada ay suurtagalayn dairo طب waxaa sababay brada ilmaha waxay joogaan Denmark haye anigana waxaan joogaa Italia haye Italia sharci ku leeyahay haye wadagana so Italia waa iska taqaanaa maalin waa shaqaynaysaa maalin ma shaqaynaysid waa wadan qof Soomaalida waa la socotaa kulliba ilmahan Denmark lagu haysaa so Denmark waxaa u baahan tahay markaas hotel inaad booking gareysatid meel ku degtid lawyer qabsatid oo sii tagtid oo ma fahantay so sometimes marka passport laan waa passport ma haysanin so passport Soomaaliya soo samaysaa lagu dhahay passport oo Italianka dawladdu ay naga diiday waxay passport Soomaaliya soo samaysta so passport Soomaali safaarad Roma tagay so passport Soomaali warqad cadeena in oo Soomaali ma fahantay so passport ma haysanin markaas Denmark ku aado saa darteed marka lawyer aan wakiishay lawyer-keega okay meeqa jeer tagtay oo maxkamad tagtay maxkamad waxaan tagay ilaa 3 jeer camal okay meeqa jeer aad booqatay ciyaalka isla 3daas jeer camal adiga 4 mil camal marka imsa carruur lagu tusiyay oo aragtay waxaa arkay 3da buu arkay 3da waa arkay marka haddii lawyer-kaaga aan kula hadashiyo maad dhahaysaa lawyer hortiisa maxkamadda nimid maxkamadda waa isku aragnay lawyer-kaaga mis aragteen marka maxkamad joogteen lawyer-adeedu waaba Italian waayba si aan turjubaan u doonanin luqad Italiankan ku hadlaa aniga soo luqad Italian waay okay marka way ku marqaati furaysaa in maxkamadda ay wada joogteen lawyer-adeeda way marqaati furaysaa lambarkeeda waxay dhan waa haya waraaqina waa okay la gabadha qabto waxay kugu eedeysay inay kaa codsatay mar kasta inaad raacdo oo maxkamadda aad u raacdo weligaan aan maxkamad u raacin niyow gabadha xoogaa aan xataa waa ku xanaaqay waxaa ugu xanaaqay soo gabadhan ilmihii iga dhiibtay ma fahantay ilmihii bay gaalada iga siisay aniga Jarmalkan ku ogaa Jarmalkay ka soo laabatay Sweden soo mar inta soo mar 20 wadan bay mar iska soo martay kadibna waxay tiri ilmihii hadda la qaatay waa kasa iyadoo telefoon lageen wax lageen laakiin waxay kugu eedeysay su'aasha ku weydiin taas maaha waxay kugu eedeysay gabadhan in aadan hal marna maxkamadda u raacin may hal marna ilmaha booqan oo soo arag may maxkamad oo waa isku raacay ka fiirso okay arintaas laba rabo maxkamadda ka joogtaa been sheegto waa lagu dhaariyay waxa rabaa wixii ilaahay ku ogi aad ka sheegto been ma aha hadaa xataa u tigin ilmaha no problem haddaad maxkamad tigin no problem duruufaha iyo dhaqaale darrada ayaa ku keeni karta inaad ilmaha u tigin laakiin hadda waxaad sheegaysaa sida ii muuqato wajada ka aqrinaayo adoon maxkamadaha ka xaadirin inaad tiri maxkamadahan tegey ما محكمة waa ka xaadiray daahir waa tagay laakiin last time ma tagin foodii waqtiga ay saamix waayay iyo passport ma haysanin mar aday dhib male laakiin maxkamadda 3 jeer tagtay aday 3 jeer camal tagay booqashada 3 jeer aad booqatay ciyaalkaaga oo aragtay okay sababtaas ilmaha waa loo qaatay maxay tahay noo sheeg sababtu ilmaha loo qaatay ilmaha waxa loo qaatay ilmaha caadi loo geeyay caadi loo geeyay iyada geysay gacanteed ku geysay maxay ku eedaysteen marka hore ayada maxay ku eedaysteen ilmaha wax la geeyay wax ma dhaantaba foodii Jarmalkan geeyay Jarmalkan ka dhiibay soo Jarmalka ka soo noqotay kadib kumanaagna ku dhalay dhahday isbitaalka waxa la ilmo iskuul la geenin oo aabahood la socon oo aabahood lambarkii ka dansatay an Italia soo socday soo ilmaha adeeg saas loo qaatay okay waxa rabaa inaan ku weydiiyo ilmaha marka hore maxaa la idinku maagay oo ilmuhu sabab baa jirta la idinku maagay
oo la leeyahay ها qayr mas'uul waa waalidkan maxaa hooyada lagu haystaa inta xog haysa macluumaadka ilmaha ka horta hooyada sharci wadanka deganeed oo sharci ku leedahay ani sharci talyaani haysta talyaani deganaa soo waa soo booqan jiray sometimes oo tagi jiray ani power xataa haddaa ilmo dacweynaya xataa power oo ilmahan ku dacweeyo iyo sharci meeshaas ma ku lahayn idaa sharci haysatay idaa meesha deganeyd soo dacwad oo waxaa lagu soo rogay soo dagaal ay gashay gabar oo waxaa jirto ay dharbaxday oo dagaal oo markaas iyadoo markhaatiyaal caddaan arkayaan ay gabar dharbaxday oo soomaaliya ma fahantay moogii waxay isku qabsadeen ayuu tumiyaa moogii diracmiyo adiga waa iska taqaanaa adiga naag kale dharbaxday soo markhaatiyaasha lagu caddeeyey maxkamad waxaa ku socday marka dagaal aa ku socday waayo kiiskaas waxaa isugu darsamay waxaa kaloo isugu darsamay iyo dowladdana mucaar waxaa qabsaday dowlado cunsuriyiina soo ilmo badan aa la qaadinaya markaas adiga talyaani intee joogtaa magaalo joogtaa talyaani magaalade magaalo baarido brinzil lahay ayada xagee joogtaa waxay joogtaa qaybta Sicilia waqooyi koonfuran kala joognaa wadanka waqooyigiisa joogtaa aan wadanka koonfurtiisa inaad kulantaan macquul ma tahay labadiin oo sartaan inaan kulanno ani hadda koonfurta yani ha waa kulmi karnaa waa la kulmi karaa no problem okay haddii maxkamada hadda lawyer European loo qabanaya ilmaha inkastoon hayo xog saaka markaan baaray in adoption caruurta laga dhigay oo caruurtaasi ay ka micno tahay dad korsada oo la iska siiyo iska qaata ay saas hadda maxkamadii ugu dambaysa saasay soo qoreen waxay dhaheen adopti oo forever aan rabnaan ka dhigno so annagana waa ka diidnay abiilan ka qaadanay so abiilka haddana waa la soo diiday so ha runtaa waa way jirtaa taas okay saaka qof looyarada la hadlo waxay ii sheegtay in ilmihii laga dhigay iska qaata rajada kaliya la qabanay ay tahay in maxkamadda Yurub la aado ha maxkamadda European Union taas ugu power badan in la aado marka adigu diyaar ma tahay haddii ay maxkamadda kugu xukunto inaad afta kow hooyada xiriir fiican la yeelato si arrintiin caadi loogu soo celiyo labo in wixii dhaqaale anaga bixin laakiin aad maxkamadda timaado oo warqad loo inaad ismiga baatahay haddii xitaa aysan haysan karin hooyadu ilmaha ina adiga haynis haddii xitaa iyada lagu eedeeyey sida qodobka aan ka arkay inay xanuunsan tahay maskaxiyan adiga maadaama ina anaa haysan kara ciyaalkii aad tiraahdo diyaar waay ha wixii ay u xukuntaan ma fahantay diyaara waay okay su-aasha kale oo aan ku weydiina waxaa weeye ilmahaaga cunug ka mida yaa hadda waxaa la ii sheegay inuu hadalkii gabay oo sida qof autism delay speech ku dhacay marka horena ilmahaagu say ahaayeen ma hadlaayeen oo hadal ma yaqiineen mise hadal ma aqoon ilmaha yacni way hadli jireen kan ugu yar ana saal lahaa soo xoogaa hadalka ka soo daahay laakiin adiga u hadla caadi waa dhagool maaha caadi u hadla soo adiga soo waxyaabo badan been oo iska soo qoraan waxay dhaan kan ma hadlo kan kaas waaye kan maxaa lalahay dhibaato badan uu soo maray noloshiisa xataa waxay soo qoreen in cunto fiican la siin jirin adiga waxyaabo badan oo surprise ah oo macquul ahayn ay soo qoreen xataa maamada xataa hooyada ilmaha ay dhashay xataa way ugu direen waraaqii waxbay u soo qoreen oo yacni gaalada ma ku sheegayaan mogtahay markay qodobka u haystaan qodob kale kuu soo qorayaan mogtahay iyada xataa waa lagu diro hadda qalad ay ga aaminsan tahay qof alaalo qofkii iyada la hadleen waxaa waye qalad ay ka dhaadhicisay soo taasna maaha hal su-aalaas aan ku weydiinayaa oo muhiim idinkoo muddo kas dagaashan oo isku noqoteen markaas ayay ku timid adoo qol degan markaasaad waxaa ku tiri daawada uurka qaado saada uur ya markaasay waxay kugu tiri haddaan daawada uurkaba qaadanayo xagga qof martiyo kale aan ku ahay xagga iska seexo ana intaas ka seexan idhaaf maya intaas ka seexan ka seexo ma dhihin laakiin waxaan dhahay maadaama ilmo naga maqan yihiin hadda qof ilmo ka maqan yihiin sharci ahaan waxaa waa dee ilmo kale haddaa dhashid isla markii otomaatika loo qaadanaya mogta sidaa darteed waxaan dhahay dee yani ilaahay aakhir way noo haystaa annagoo ilmo naga haysto haddaa ilmo kala dhalno haddana la qaato oo gaaladay u dhadhalno soo waa laga fiican yahay so waxaan dhahay aan sameyno markaas aan kala korino ilmaha ma fahanti hay ma siisa kiniinki marka daawada ma siisa marka daawooyinkii wixii ahaa waa isticmaali jirnay soo iidan waxay dhehaysa daawooyinkii waa tuuray iyo waa furay iyo kaasi sameeyey iyo soo marka si xanaaqa xataa waa u dhahay niyo haddaa daawooyinkii wax oo saan ku dhahay iyo eleelin oo rabtid ilmo inaad dhashidoon laga qaato
so waxaa dhashid markaa waxaan ku dhaha xataa ma dhalana ku dhaha waa ku weyn karaa xanaaqna u dhahay taas ma fahanti laakiin qof de ilmihiisin karaa imala ma fahanti gabar kastoo kugu meersan waxay dhasho adaa iskale way waxyaaba xanaaqa u dhahay way jiraan way waxaa ku dhahday gabadha ay kugu adeysay inaad ku tiri cunuga wuxuu eg yahay nin hebel hadda ka hor soo hebel buu eg yahay cunuga maya ilmihii anay eegi sabrada waa lagu soo diri karaa aniga intaagan waay 3 wiil oo naga maqan iyo hal gabar eegisaysa cunuga ku tiri ani kaama dhal maya adiga gabadhaan waa ku furfuran tahay brada gabadhaan maxaa la isheedi hooyo ilmaheeda la qaatay waay soo marba qof ay iska qabsanaysa ku dhigaysaa laga yaabaa soo aniga inaa caayo ama wax dhaho ma fahantay maanta sharaf iyo karaame iga mudan tahay 3 wiil iyo hal gabar eegaysa gabadha hadda aaw haddaa hadala xanaaqa u dhahay ama aan ku xanaaqay waxyaabo ma xasuusti aan dhahay way dhici kartaa laakiin it's not true wax serious ma ahan so familygana waa ogtahay marmar waa la isku kacayaa ma fahantay laakiin qof ilmihiisa inkarayna mihi qof ilmihiisa dacweyna mihi brada ma fahantay gabadhaasna waxay iga mudan tahay sharaf iga mudan tahay gabadha hadda aaw gabadha aaw 3 wiil waa garta gabadhii iyada weyn ahaa anaga haysano gabadha saddexan way maqan yihiin laakiin tan waxaan rajeynaynaa in oo dacwadii wax nagu furino oo na soo raadinin oo nooga imaan Itaaliya oo naga qaadanin fodii sharciga waddanka oo Yurubiga wuxuu qoraa iminka waxaad xaqiijinaysaa ilmaha adaa dhashay ha ilmahayga waa ha brother way waxaad iminka xaqiijinaysaa oo looyarkaada kala hadli karaa inaad maxkamadaha 3 jeer tagtay maadaama iidu ay weligii maxkamad ma imaan 3 jeer maxkamad inaad tagtay isku aragteen adiga iida dacwadda aad fariisatay 3 jeer ciyaalka inaad booqatay markhaatiyaashii turjubaanadii waxay dhanahaya caddeyn dhanahaya marka intaas been bay ka sheegtay idaa leeda intaas beena ka sheegtay maxkamad meel raacin iyo ninkan uu dacweeyay iyo ninkan saano ii galay iyo dabeecadahaas waa ku aqaana waa iska dhahda waa iska calacashaa waa iska qaylisaa soo xaqeen u leedahay haddii si loo fiiriyo foodii oo ilmaheeda maqan yihiin brada oo qof garab istaagay maanta oo soomaalinimo ma fahantay ama reernimo ugu kacay oo noo caawiyey ma fahantay oo looyari wax noo qabtay wax yar isug marka wax yar isug ma fahantay brada ma fahantay wax walba ay sheegto maanta noo gaarsiiyay komitiga maxkamad aan tegin way jirta dairow ma fahantay hadda maxkamadii ugu dambeysay oo bil ka hor dhacday ma tegin laakiin lawyer u dirsaday lawyerkaas ay soo gudbinay foodii waa dareemi kartaa brada ma fahantay foodii shaqiyaro marmar tuurtuursha iska aada talyaani waa iska taqaan waa iska badiyahay soo hadhow shaqadii abweynaysaa lagaa soo burinaya ma fahantay adiga lawyerkii tikitkii xataa baskii wixii baabur raaci wixii xataa ma haysanin ma awoodin runtaa fiican mogtahay soo weligeena intaa soomaali u tagay wax ma dhihin hale caawiyo ma fahantay laakiin wax walba ilaaha keeni karo yacni qof dagaal iyo problem iyo buuq iyo waxaasna hadda ku darsan karo miyii qof ilmanka maqaynaayo ma fahantay qofkii xataa wax xun iga sheegay waxaa inaa iska cafiyaan diyaar u ahay ma fahantay ilaahay wax walba u arkaya brada qof maxaa lalahay hadda problem iyo buuq iyo diyaar u ah namihi ma fahantay soo hadda keliya inaan ka fikiro ilmahayga sidaa usoo ceeshan lahaa oo maxkamad caalami u qabsan lahaa waxaan la yaabana maxkamaddu haddii xitaa ay eedeeyaan gabadha aabbahiyaa joogo oo ku qoran si ilmahayga adi maxaa halays aniga wax ma halaynin ilmaha hadda ninka islaamta waarta maxaa hayaan si aniga ilmaha maxkamad maxay sameyn fiiri aniga denmark ma joogno denmark waxaa loo geleeyay caadi ahaan 3 bilood bas inaan joogo horta sharciga oo talyaaniga denmark iyo yurubiyan waxaa lagu joogi karaa 3 bilood 3 bilood markay kaa dhammaato hadday xataa ilmaha sheegtay kaa joogaan qof walba hadduu kaa joogo maxkamad ma tegi kartid booliska xuduudka ilaaliyo iyo maxkamad gooni waay haddaa inta tago aan soo laabto haddana waa tegi kartaa soo laaban kartaa haddii marmar waxaa laga yaaba 3 bilood markay kugu dhammaato iyo maxkamaddii wixii inay iskeeni weyso oo baasboorna kaa maqan yahay baasbooradii waa naga cishteen talyaaniga sijoorna besa haysan id card besa waxay noqotay somaliland la xiriir oo baasboor soomaali liga soo diro aniga alxamdulillah hadda waa soo gaaray soomaaliya baasboor liga soo diray ilmaha laakiin adaa ku qoran ilmaha ninka hadda jaaniska haysto oo u dacwoon karo oo ilmaha markaas oo jaaniska hadda haysto oo dadka dhahaan aniga waay anigana waa iska taqaana talyaani iska jooga oo waxba oo shaqa xataa toosa haysanan laakiin maxkamaddu waxay dhahaysaa haddii aan siino ninkan ilmaha muxuu ku biilaa
maxkamadda hadday dhahdo ninka haddaa ilmaha sin muxuu ku biila hadda ilmaha dibraada haddaa dhulka seexan xataa way la seexanayaan ilmaha anaa dhalay ilmaha maxaa lalahaa iishaadii qolkaa yarkaan deganaya sariir taalo sariirtan ay seexanayaan ama waxay seexanayaan meel ilaal meesha seexanaya ama waa wada Soomaaliyan geena ma fahantay maxkamadda laakiin maxkamadda waxay u baahan tahay fiiri lawyer private ah lawyer oo dawlad ku soo qabatay horta wax mataraya moogtaade maxkamadaha xataa warqadda ay soo diraan wuxuu ku leeyahay ilmahan waa caadi u qaadanayna saan waaye ma ogashaa ma ogoli okay abiila ka qaadan kartaa maxkamad saasaa ku martayba haddaada haysan lawyer private ah ama maxkamad European Union ah ma fahantay ilmo badan oo Soomaali baa maqan kartaa maxkamad saasaa ku martayba وهي كانت طبعا واقع يعني وكاية قرب عدي هاي فرق كاميرا دي مالي لا باك أنا إيش ذا هاي فرق كاميرا دي مودا كنت تاكب حمود قرب